بعد السلام حفلتان مناسبة عاوة سجوني ومدة تقرا وحي تهي إن حلبانada dowlad goboleedka koonfur galbeed aan u mahad celinno oon ugu mahad celinno shaqadii quruxda badnayd ee dastuuriga ahayd oo waajibaadkoodaha ay guteen inaan nidhaahno aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo inaan hambalyo nidhaahno sanatarada koonfur galbeed ee la doortay qorshaha munaasabadda labadaas nooc uu isugu jiray sharafkan iyo xafladan sharafayna noo tahay inaan ka soo qayb galno annagoo dhan marka ugu horeyso baarlamaanka koonfur galbeed guddigii doorashada ee baarlamaanka guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed intaba waxaa la dhihi karaa shaqo fiican oo lagu faano oo kalsooni badanna gelisay iyay qabteen waa ogtihiin muddadan doorashada ay bilaabatay aqalka sare baarlamaanadii idinla midka ahaa shaqo fiican ay qabteen laakiin kalsoonida iyo shaqo wanaagga iyo taariikhda aan maanta samaysayn cid samaysay male meel walbo iyo cid kasta oo danaynaysay arrimaha doorashooyinka iyo cid kasta oo ka warhaysay oo korjoogto ka ahayd iyo meel walbaba yaa laga sheegay oo lainkaga mahad celiyey oo lainkaga hambaliyeeyey sida kalsoonida leh dimuqraadiyadda ku jirto cadaaladda ku jirto xulashada ku jirto oo aada u soo saarteen sanataradii aqalka sare ee ugu habboonaa aada iyo aada ugu mahadsantihiin sidaasoo kale guddiga doorashada ee baarlamaanka koonfur galbeed isagana aada iyo aada ugu mahadsan yahay dadaalka iyo shaqada dheeriga ah uu qabtay waqtiga dheer lagu geliyey aada ugu mahadsan yihiin sidaasoo kale guddiyadii noocyada kala duwan lahaa seed iyo feed iyo xalinta khilaafaadka oo ayagana shaqada ugu muhiimsanayd qabtay ayagana waa u mahad celinaynaa aada iyo aada ugu mahadsan yihiin intaas kadib waxaa noo jooga caawa oon rabnaa halkaan inaan hambaliyo iyo dardaaran iyo talaba aan isugu darno 8 sanatar ee la doortay ee reer koonfur galbeed markii aada fiiriso sanatarada sida ay ku soo baxeen iyo sida lagu xushay iyo siday hadda yihiin waa xigmad rabbaani ah ilaahay baa nagu toosiyey ilaahay baana na haleeshiyey 8 sanatar waxay ka sameyn yihiin oy hal mid ka yihiin aqoon ha ku kala sarreeyeen laakiin aqoonta shahaadiga oo maadiga iyo diinigo intana waxay ka yihiin waa ka sameyn yihiin dad aqoon leh ninka ugu yar master inta kale midda inta laga sheegayo PhD haysto waayo aragnimo iyo karti iyo hufnaan badan waay marka ugu horeyso waxay ka sameyn yihiin aqoon wixii la dhihi jiray waa ka sameyn yihiin aqoon la-aan kuma jirto marka xigto waxay u qaybsan yihiin 3 qaybood oo bulshada laga rabay 3 dhalinyaro dad waaweyn iyo gabdho dumar 3dan waa ka kooban yihiin waxyaalaha marka xigmada rabbaaniga ah oo ilaahay ugu guuleeyey oo dadka dhan aysan qabanan qabnay ka mid tahay runtii markaa fiiriso nidaamka uu aqalka sare ku samaysmay iyo dadka soomaalida aragtida ay ka qabaan iyo faham darrada hataa aan la fahamsanayn macnaha uu leeyahay aqalka sare iyo shaqadiisa waxay tahay xitaa aanan si fiican u qeexnayn waa nasiib darro
aqalka sare wuxuu ka kooban yahay horta sidiisaba waxaa lagu dhisay si degdeg ah oo aada looga fiirsan. wuxuu ka kooban yahay 54 xubnood. dastuurkuu ku qoran yahay, dastuurkii aan la dhammaystiriyuu qayb ka ahaa oo ku qornaa. si marka loo fuliyo ujeeddada ugu badan oo laga raacay oo loo suubiyey 2016 waxay ahayd dastuurku ku qoran yahay madaxweynaha waa inay doortaan labada aqal darteeda yaa loo boobsiyey oo sidii u samaysnaana aana loo samayn. markaa fiiriso waa 54 xubnood. 54taas xubnood dadkii qubarada ahaa oo dastuurka ku soo qoray waxay kaga talagaleen xisaabta 3 qaybood in mid laga dhigo. 3diina midna lagama dhigin. marka ugu horeyso waxaa lagu cabiray 18 gobol ee Soomaaliya hore in lagu qaybiyo oo gobol kastoo ka mid ah uu helo 3 senator. ma la marin processka asaga ah. midda labaad oo dadkii soo qoray ay ka fikireen nidaamka baarlamaanka aqalka hoose uu u samaysan yahay yaa lagu cabiray oo loogu talagalay oo ahayd 4.5 in lagu qaybiyo beel kastana ay hesho 12 beesha shanaadna ay hesho 6 ayadana lama marin. midda saddexaad ugu dambayso state ha lagu qaybsadaa layidhi stateyadiina looma simin oo wax stateyada ay u sameeyeen maaha. marka waxaa arkaysaa inaan dan badan laga lahayn sidii loo sameeyey aan faham fiican laga qabin oo laga gaarsii istiraatiijiye loogu talagalay ma jirin. doorashada madaxweynaha ka qayb galeen hala boobsiiyo ha laga gaarsiiyo xoogoo waa laga murmay kana qaylo badan ha qaato kana aamusnaan badan ha laga tago jaf yay ku samaysantay. intaas kadib waxay rabta waxa ahaato dad Soomaaliyeed yaa 54tiiba laga dhigay. haddana wax nidaam ah iyo wax fahan ah oo laga haysto ma jiro. waxaa maqlaysaa waxyaalaha ugu yaabka badan waxay ka mid tahay inaanan la rabin oo wax la iska sameeyey oo ay Soomaalida macno ugu fadhin ay tahay. waa ku fahmaysaa waxaa loo yaqaanaa aqalka sare in qof weyn oo shaqada aan loo helin lagu qoro. haddii qof dhalinyaro oo aqoon-yahan la qoro waa lagu soo wacaa waxaa lagu leeyahay bal waxaan ka hor la sameeyey maxaa ninkaas yarkaa loo qoro hebel buu ku qortay ninkii 100 sano jiray nin odaga hogaayeed oo lagu soo lumeeyey meesha yaa lagu mithaal qaadanaya. marka waxyaalaha marka ay ka midka tahay waxay ka mid tahay fahandarrada aqalka sare laga fahansanyahay. markii aan ugu qaybtii ugu horreysay aqalka sare sameyn yaa nin dadkan iska weerarsan oo diyaas barada yaa soo wacay wuxuu yidhi war madaxweynuhu meel helalna waxaa laga qoray helal adigana waxaa qortay ayaan haye oo maxaa dhigo ku jiray waxaan yidhi helalka asheegayso haddii inta joogi lahaa aniga ooma dirsadeenba. ayaan gabadh master ah oo wax soo baratay oo aqoon leh oo maskax fresh leh oo matali karta stateka dalka iyo dadka iyo daacad loo adeeyo taqaano wey. nin 60 sanadas ummadda Soomaaliyeed soo qiyaanayo oo wixii mushkilad dalkan ka dhacay oo dhan qayb ka ahaa oo dhibaato ujoog ahaa iyo ku mitalaya gabadhaas fresh oo dalkii dadka wax soo baratay. waxaan yidhi mar dambe ay soo waray ani adigu isku aragtida nin isku xisaab madani. waxay ka mid tahay marka fikradda qaldan oo laga qabo aqalka sare. waxay ka aaminsan yihiin wax uu macno badan aan ahayn oo ah in uu odayaal fadhi ku darar ah inta la isugu keeno ay isaga kartamaan oo ku fadhi daraan maalinkii dagaalkii 60kii suu ahaa kii 70kii suu ahaa kii 90kii waxaas laga sheekeeyay iyo ka aaminsan Soomaalida aqalka sare. madaxweynaha Mareykanka wuxuu ka bilaabay aqal sare shaqo uu qabto ugu horreysay 28 sano jir. adduunyada kuma xirno dadka Soomaalida xigmadda waa ka dhamaatay
waxyaalaha laga hadlaayo markaad dhegaysatid waa naxaysaa waxaa ka laga xishooda iyo qofka sheegaya wuxuu ku leeyahay wallah nasiib darro adiga qofkan muxuu yahay iyo muxuu bartay midna laguma dhahayo waxyaalaha siyaasadda ku cusboonaaday waayo waxaa ka mid ah hebel hooyadiisii tahay iyo yuu qabaa siyaasadda soomaaliya maxaa waxaas ugu jira wax laga xishooda waayo dadkii marka aqalka sare marka waxaas ay soomaalidu yeelayaan oo dhan ma aha aqalka sare waa matalaada dhabta ah ee isteediyada waayo maadaama system federaal aan qaadanay golaha shacabkana uu wakiil ka yahay shacabka soomaaliyeed 54 qof waxay wakiil ka yihiin isteediyada dowlad goboleedyada dowladda soomaaliya marka 8 sanatar waxay wakiil ka yihiin oy matalayaan oy dowladnimada soomaaliya ku matalayaan koonfur galbeed wakiilka u jooga waayo waxay ka tirsan yihiin xisbiga koonfur galbeed waxay ka mid yihiin dadkii noo noqnaa ee dowladda federaalka afkaanada ku hadlayay oo sheegayay koonfur galbeed iyo nidaamka federaalka iyo wuxuu qaba dadka ka hadli lahaa waayo waa xildhibaano waa aqalkii sare maxay kaga duwan yihiin xildhibaanka aqalka hoose hadduu bilaabanayaa asaa soo sharaxayo waxaa dooranaya beeshiisa weliba maahe jilibkiisa hoosaa dooranaya marka wuxuu matalaya waa jilibkiisa hoose laakiinse aqalkan sare waxaa soo xulay oo way soo tartameen waxaa soo xulay oo soo kala saaray madaxweynaha stateka waxaa doortay xildhibaanada koonfur galbeed oo soomaalida oo dhan isugu jira qabaa'ilkeeda ka mida hal qabiila soomaaliya ka mid aana ku jirin intaasay mas-uul ka yihiin intaasayna marka ay dheeryihiin xildhibaanada kale marka hambalyo runtii ilaahay baa na haleeshiyey waana dareemi karaa dadkaas inay garan karaan wixii loo doortay oo ay u doorteen dadka reer koonfur galbeed inayna ka soo bixi doonaan waajibaadka saaran ayna gulan doonaan bulshada ay dhex tegayaanna ay ku matali doonaan magaca koonfur galbeed aanana ka imaan doonin wax mas-uuliyad darro ah iyo wax dhaliila aysan uga imaan doonin dadka koonfur galbeed aada iyo aadaan ugu kalsoonahay waxaan ka soo saarnay oon ka soo xogay 60 qof oo isu sharaxday 8 kursi iyo ayay ilaahay nasiibkooda ka dhigay ilaahay baana na haleeshiyey dadkii ugu habboonaa oo ugu fiicnaa oo ugu mudnaa oo ugu munaasabsanaa waaye adinkana waxaa ku guulaysateen inaad tartankii ku soo saartaan aada iyo aada u mahadsantihiin sanatarada hambalyo soo dhawaada aadaan kugu faraxsan yahay waxaan filayaa insha allahu tacaala inaad talada iyo rabitaanka iyo baahida koonfur galbeed aad ku shaqayn doontaan insha allahu tacaala saasaan ka filaya waana ku kalsoonaa inaad samayn doontaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aada iyo aada u mahadsantihiin